madaxweyne xasan sheekh oo tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in muhiimadda koowaad ay dowladdu saarayso dib u habaynta ciidanka qaranka oo aas-aas u ah dagaalka dalka lagaga sifaynayo Al-shabaab balnala daawo leegta saar sheerna ku qabo. waxaan rabaa inaan la hadlo wiilashayda Soomaaliyeed ee meeshaan taagan ee uga soo tagay dalkoodii in ay isu qalabeeyaan difaaca dalka iyo baabi'inta cadowga. waxaan idin leeyahay wiilashaydii geesiyaashii Soomaaliyeedow kuwii go'aansaday in ay naftooda u huraan difaaca karaamada iyo sharafta ummadooda oo ay ugu horeyso tooda ta walaalahood iyo ta waalidkood intaba shaqo fiican ayaad qabateen maantana waxaadna tusteen inaad u diyaar garaysan tihiin. waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad Soomaaliya ka soo tagayseen oo joogteenba intaba dagaalku waa socday. wiil walaalkiin ah iyo gabar walaashiin ah oo idinkoo kala ah ayaa dhimanayay oo dhaawacmayay oo curyaamayay. halka shay ay intaas ay u bixinayeenna waxay ahayd jiritaanka sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, ilaalinta dalka sida aad haddaba dhaarta aad ku marteen iyo diinta ayay u taagnaayeen. marka aad tagtaan kalama wareegaysaan ee waa ku biiraysaan ayagii hore u joogay oo ilaa saacaddan dagaalka wado ayaad ku biiraysaan, ka mid noqonaysaan, la eryeysaan, la jibinaysaan cadowga. aad iyo aad ayay ii farax gelisay, ii dhiiri gelisay guud ahaan wixii aad i tusteen maanta halkan. waxaa iyadana dheeri ahay wiilal Soomaaliyeed oo wax bartay oo qaarkood jaamacada ka soo baxeen oo xafiis air condition la iyo inuu iska dhex fariista karay inuu soo baxo oo tababar askarinimo galo si uu dalkiisa u daafaco. waa wax aad iyo aad u qiimo dheeri ah leh. ummadda Soomaaliyeedna waa gaarsiinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay heegan ugu yihiin in ay dalkoodii u huraan wax kastoo ay haysteen. haddii walaalaha Ugandiiska halkan jooga ay halkan inta ka safreen Soomaaliya tageen, ku dagaalameen, ku dhinteen, ku dhaawacmeen, danta keliya oo ay leeyihiinna ay ahayd inay arkaan Soomaaliya oo nabada oo taagan, adiga maxaa laga filayaa? adiga waxaa laga filayaa intaas iyo ka dheeri. laakiin sida ugu fiican ee Uganda aan ugu abaalgudi karno waxa waaye wixii ayna bareen oo maanta aadna tusteen in aad ka dhaqan gelisaan aradii oo aad cadowganaga aad tustaan oo aad ku maquunisaan awooddaas iyo waxbarashadaas casriga ah ee la idin siiyey. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaanan idin rajaynayaa guul. ugu dambayntii waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo walaalaha jamhuuriyadda carabta ee midowday ee Imaaraat ee ayaguna qayb ka qaatay maanta inaan meeshaan soo istaagno, diyaar la ah
maxaan ku yiraahdaa garab istaaga noocaas Soomaaliya inay ku garab istaagaan waa wax weyn oon dalal badan oo caalamka jooga aanay noo qaban dalal badan aan noo qabtay laakiin haddana kuwa kale oo ka badan oo ka waaweyn nooma ayan qabanin waxa dalalka tirada yar ee walaalaha ah ee hadda aan inta ka sheegay ay noo qabtay jamhuuriyadda imaaraadka carabta iyo madaxweynahooda Allah ka yaale waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad idinkuna u mahadsantihiin haddii caalamka sidaa noo garab istaagay oo dhinac walbana looga yimid oo la yiraahdo maxaa u baahantiin tababaran u baahanahay hooda maxaa u baahantiin qalabaan u baahanahay hooda markii nala siiyay kadib haddii aan gadaal u soo jeesano markaas maxaan ku tilmaanaanaynaa dadaan macno lahayn dadaan jirin dadaan karaamo lahayn dadaan waxay dhowrtaan qabin mana ihin waaw waa boqolkiiba boqol inaanan ahayn dad sharaf iyo karaamo iyo cizi lahaan nahay dadnimo iyo dal iyo diinba lahaan nahay waa soo istaagnay cadowgana waa iska kicinaynaa kuwa kicinaya aad ugu horeysaan iyo kuwa idinka dambeeyo qaarna waa idinka horreeyey idinku waa daba kacdeen kuwa kaloo badanna waa idin soo daba kici doonaan guul iyo khayraan idin rajaynayaa kulankeenna ku xigana Soomaaliya iyo maxaan ku raadahay goobta dagaalka ayaan ku kulmi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh